iminkana waxaan gelaynaa markaa down mildew oo ka mid ah cudurradii aan hore usoo sheegnay. marka halkan waxaa ka bilaabanaya casharkii shanaad baa ka bilaabanaya. waxaan ka hadlaynaa markaa down mildew symptomskiisa saytiin, causeskiisa maxaa cause gareeya, managementiga sidee loo daryeelaa. symptomskiisu wuxuu ka yimaada death of seedling leading to reduce standing in the field. seedlingka oo wuxuu ka yimaadaa oo dee cudur lahaay ayuu ka yimaadaa. If the seedling survives the may be colored with thickened leaves, hadduu marka uu ka badbaado leaveskaas wuxuu ka geli karaa haddana mar kale uu soo xilliga uu seedlingka hadduu ka badbaado wuxuu mar kale kugu soo laaban karaa markii geedkan salkiisu uu adkaado oo dee xaalad korogada. marka white contouring growth is present on leaves ayuu marka meeshan wuxuu kusoo gelinaa geed kale oo cudurku ka dhaco ayaa jiro oo cottonka la yiraahdo ayaa jiro. marka cudurkan waxaa la wadaaga down mildew waxaa la wadaaga cottonka ama suufka. systemic infection causes wuxuu stunt plant geedka inuu noloshiisa istaagto ama uu growthki joojiyo ayaa ka dhasha, and reduce seed production wax soo saarkiina uu yareeyo. waa kana soo ka muuqato keeshek. marka sida meeshan ugu wada seedlingka xilliga uu ku jira waa xilligan uu ka soo muuqday waa yar yahay geedki uu yar yahay. marka waa seedling stage-ka marka stand growth ku sameynaa macnaha noloshiisu istaajina. xilligii labaadna waa kaasa oo caleemihii ayuu uga dhacay geedkii oo weynaaday. marka asna wuxuu ku sameynayaa inuu wax soo saarkeega uu ka yareeyo. meeshan waxay comments ku siinaa uses macnaha waxa waaye kii sheeg baalkii ahaa waxyaabaha uu uga hadlayay ama causeski. disease emerged wuxuu ka soo fafuri high humidity waa fungi humidity-kaas uu ku yimaadaa ama waxa la yiraahdo kii sheeg rain splashing. dhulkii markuu roobka dhibcaha waa markuu dhulka ku dhaco splashing ka yimaado ama dhulka markuu ku dhaco waxa ka soo faniina haday geedka caleentiisa koraan waxa waaye wuxuu ka funga ka dhasho. marka waxyaabaha sababa waxaa kamid ah ama cause gareey waxaa kamid ah splashing iyo humidity-ka. marka sidee loo manage gareeyaa? waxaa loo manage gareeyaa plants flower varieties that resistant to down mildew. waa inaad horta marka hore ibaartaa varieties aad keensataa down mildew resistant ama treat seeds ah ama la daaweeyey seedkiisa. marka fungi periodka inaad iska ilaalisa iyadana waxay ku taraysaa inaad xilligaas abuuran. foliar fungicide infected at controlled systemic infection and are not recommended. meeshan lagu kii sheegay inaad controlsho recommended ma aha lagu dhahay because geedkan waxa waaye xilligan oo kale inaad beerana recommended. marka waa qaybtii shanaad ayaa inta noogu eg. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. ku xirnaa Beeraha TV si aad uga bogato barashada cilmiga beeraha.